kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warbaahinta Baraawe qodobada maanta warkayna Baraawe news ugu doorka roonay waxaa kamid ah daawadayaal Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa shir gudoomiyay kulankii khamiislaha ee golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump asiguna caaridadii ugu badneyd oo gudaha dalka Mareykanka siyaasiyiin oo kala kulmaya iyadoo banaanbaxyaduna weli ay kasii socdaan gudaha dalka Mareykanka dadka dalbanaya cadaaladda iyo dawladda caalamka aqoonsan yahay Libya JNA ayaa eelaboorka dhinaca koonfureed magaalada Tripoli ahna eelaboorka hore magaalada Tripoli ka burisay Khalifa Haftar ciidamo uga sugnay halkaas iyadoo dawladdu sheegtay inay gacan buuxda ay ku hayso deegaanada eelaboorka iyo eelaboorka naftigiisaba daawadayaal intaas in kala Baraawe news faahfaahsan ku soo dhawaada ومعلم خميسة تاريخ ذي كوبا جنتهاي أفرت بيش جون لبضة كونية لبعتنكا كنا سود بعد الدعوة دي الوركين أمانتا أنا كوب اللون رجال وزراء جمهورية فدرالك الصومالية حسن علي خير يا شو قدومية كل أنكي كلها وزيرة دولة فدرالك الصومالية كل أنك سول لو هاد لا مسقمات صغيرة سيدا لو كورتي لهاي يدو شجرة زاروه إني مهم تهاي إني مسقمات صغيرة يدها دولة دالك لقي إلى اليوم رجال وزراء يا شو قدومية كل أنك كلها وزيرة خميس لها iyadoo wasaaradda cadaaladda ay soo gudbisay nidaamka loo marayo la dagaalanka habka masuq-maasuqa wasaaradda amniga xukuumadda federaalka iyadoo ka dhigaystay halka uu dalku marayo xaaladda amniga dalka wasiirka amniga Master Slow ayaa ra'iisul wasaaruhu uga mahad celiyay sida xaaladdu amniga dalka ay tahay sida ay golaha wasiirada ay sheegeen iyaguna waxay warbixin ka dhigaysteen Marwa Fawziya Abikar wasaaradda caafimaadka iyadoo wasaaraddu sheegtay inay dadaal xooggan ugu jirto sidii ay ula dagaal lahayd xanuunkan faafaha daran ee COVID-19 ra'iisul wasaaraha ayaa ku amaanay hawsha ay wadaan ra'iisul wasaaraha dowladda xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa guddiga COVID-19 ee la dagaalanka xanuunka fayraska uu ku sheegay inay sii dardargeliyaan sidii badqabka dadka looga shaqay lahay iyadoo markii ugu dambeeyay oo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo shirki oo soo gunaanuday iyadoo dalka Soomaaliya xanuunka faafaha daran ee COVID-19 ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Marwa Fawziya Abikar ay sheegtay inay 2204 kiis ay marayaan halka dhimashadu ay sii cagaaqaynayso 79 qof iyadoo halka dadka bogsooda lagu soo waramayo inay hadda ay gaareen 418 ruux iyadoo dalka meelo badan ay dadku ka cabanayaan xanuuno kala duwan dowladda Soomaaliya ayaa waxa la sheegay in dadaalo xooggan ay kula jirto si u badbaadi lahayd dadka madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump asiguna caaridadii ugu badneed oo gudaha dalka Mareykanka uu kala kulmaya kadib markay siyaasiyiin caana kuwa xil xukuumaddiisa ka ay kuwa ka hayn ay ku eedeynayaan inuu dalka madaxweynuhu oo qalalaasaha uu si horkacayo iyadoo xogayaha difaaca dalka Mareykanka Mark Esper oo sheegay inay militariga dalka Mareykanka aysan dastuurka ku qoreen in shacabka Mareykanka loo adeegsado sida uu sheegay goorsi hore madaxweynaha Mareykanka uu sheegay inuu militariga oo gobolada ay qalalaasadu ka socdaan uu ku daadi doono si cagto Mariyaan wuxuu ku sifeeyay koox qowleysata xogayihii hore xukuumadda Trump xilka kan hadda kii ku horeeyay waxa lagu soo warramay asiguna inuu madaxweynaha Mareykanka uu ku tilmaamay nin dalka Mareykanka kala qaybinaya sida uu sheegay xogayihii hore dalka Mareykanka ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka iska dhaaf dalka Mareykanka uu mideeyay oo ku tilmaamay nin kala burburinayo shacabka Mareykanka kalsoonidooda sida uu sheegay Master Esper asuguna sheegay inay shacabku loo baahan yahay inay si salmi u banaan baxaan balse aysan ahayn wax la qarbudo ama wax la baabiyo sida uu sheegay xogayaha difaaca dalka Mareykanka Mark Esper oo waaxda gaashaandhigga dalka Mareykanka kala hadlaya shacabka Mareykanka wuxuu ku booriyay inay dadku si salmi u baxaan cadaaladanu ay tahay in wax waajiba dalka hay'adihiisuna ay inay ku dhaqmaan wax walba sharci uu sheegay Mark Esper balse uu ka digay in qalaaso iyo fawdo laga abuuro dadka
sida wanaagsan u banaanbaxay sida uu sheegay xogayaha difaaca dalka Mareykanka. iyadoo madaxweynihii hore dalka Mareykanka Barack Obama uu asaguna sheegay inay sanadku markuu ahaa 1960kii la arki jireen dadka madowga dad cadaan u banaanbaxaya. madaxweyne Obama ayaa isagu ku booriyay dadka madowga inay haystaan waqti fiican, soo sheegay 1960kii iyo wixii ka horeeyayba inay la arki jireen cadaan, balse maanta uu arko sida uu sheegay loona baahan in la isdejiyo iyo madaxweyne Masar Obama qallaasahana hoos loo dhigo oo si salmiya loo banaanbaxo. madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama ayaa isagu kasoo jeeday Ameerikaanka madow, wuxuuna dadka ugu baaqay in qallalaasaha la iska ilaaliyo sida uu sheegayo, loona baahan yahay in gacnaha la isqabsado sida uu sheegay madaxweynaha hore dalka Mareykanka Masar Barack Obama. dalka Libyana dagaalo xoogana ka socda iyadoo dhinaca kale diblomaasiyiin ay socdaan dalka Turkiga iyo Russia, iyadoo lagu soo waramayo ra'iisul wasaaraha dalkaas Libya Fayez Sarraj oo jooga magaalada Ankara ee dalka Turkiga, halka ku-xigeenkiisa iyo wasiirka arrimaha dibadda ay magaalada Moscow ay joogaan. halkaasna ay kula kulmeen wasiirka arrimaha dibadda dalka Russia Sergey Lavrov oo ka wada hadlay xaaladda dalka Libya ka taagan, asoo Russia oo daneynayo kadib markii Khalifa Haftar sida badan looga tukroonaaday deegaano uu horey u gacanta ugu hayay dowladda la aqoonsay caalamku ee Tripoli ay gacanta ku dhigtay. Khalifa Haftar ayaa hadda wuxuu og yahay Russia mid oo dhinacan dowladda oo hunguri uga jiro inuu la heshiiyo. Turkiga iyo dalka Russia ayaa hadda waxay u muuqataa inay arrinta qaraabeynayaan si dalkaas Libya nabad loogu soo dabaalo. Fayez Sarraj ayaa isaguna Ankara jooga madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan halkaas shir weyn kula leh oo xaaladda dalka Libya looga hadlayo. iyadoo lagu soo waramayo Khalifa Haftar saraakiil ka socotona inay ku sugan yihiin magaalada Moscow ee dalka Russia ay kala xaalayaan sidii laga yeeli lahaa dowladda JNA caalamka aqoonsan yahay. LNA waxaa lagu soo waramayaa weli inaysan ka quusan inay xoog military u adeegsato dalkaas, balse maalmihii ugu dambeeyay ay dowladda dalkaas ay soo bandhigtay qawood aan inaba caadi ahayn sida ay warbaahinta caalamku ay sheegayaan. daawadayaal warkayna caalamka Baraawe News intaas ayuu ku egyahay. dhinaca farsamada waxaan noo fadhin Engineer Saki anigu Cabdiraxmaan warka ayaan idin socodsiinayay. faafinta warka waa xaggiina, sidaas iyo nabadgelyo.